Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni Dowlad Dhis. Barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa hadduu Allaha awoodda leh inoo ogolaado maxay tahay shaqooyinka laga rabo dowladdu inay qabato. Maadaama dowladnimadu ay tahay adeega bulsho oo in bulshada loo adeego un ay shaqadoodu tahay cidda mas'uulka ka ah dowladdaas, waxaa laga rabaa inay xaqiijiso inay adeegii loo baahnaa ee bulshadu u igmatay ay qabato. Haddii ay qaban weyso way ku eedoobi doontaa, waxaana laga yaabaa inay xilkeeda iyo mas'uuliyaddeeda ay ku weyso. Haddii ay qabatana inay abaalmarin iyo bogaadin ay ku hesho, bulshadiisana uga kasbado qofkaas mas'uulka ahi kalsooni. Waxaa jira 7 arrimood ama 7 shaqo oo aas u ah jiritaanka dowlad, lagana rabo inay dowlad walba siiso muwaadiniinteeda. Dowladdaasu meeshay doonto ha ku taalo, gobolkay doonto ha dhacdo, dhaqaalaheedu intuu doono ha la ekaado, ma jirto dowlad ka cudurdaara karta oo dhihi karta ani shaqadaas ma qaban karo, ama awood uma lihi, ama dhaqaale uma lihi. Waa shaqooyinka beyska u ahba sideedaba inay dowlad la ahaado ama dowladu jirto. Haddii laga waayana macnaheedu waxa weeye inaysan dowladu jirin. Shaqada koowaad ee dowladda laga rabo waxa weeye inay cadaalad samayso. Hay'ado cadaaladeed, maxkamado iyo garsoor cadaalada inay samayso. Oo bulshada labadii qof ay isqabataa, waxay doonaan ha isku qabtaane, inay heli karaan garsoor ama maxkamado loo siman yahay iyo qawaaniin loo siman yahay oo ay ku kala bixi karaan, qof kastana uu xaqiisa ku heli karo. Haddii uunan jirin qawaaniin iyo sharciyo iyo maxkamado iyo cadli hadduusan jirin, cadaalad haddaysan jirin, bulshadaasu ma wada noolaan karto, dowladdaasuna ma jiri karto. Dowladda waxaa laga rabaa marka koowaad inay bulshada u samayso sharciyo cadcad oo ay dadku u siman yihiin. Kadibna ay u samayso maxkamado iyo garsoor cadaalad ah oo bulshada u kala saara si cadaalad ah. Iyadoon cidna loo eexanaynin, cidna loo dulminaynin, iyadoon la fiirinaynin qabiilka qofkan uu ka soo jeedo ama qowmiyadda uu ka soo jeedo ama dhaqaalaha uu haysto. Ee loo fiirinayo keliya xaq ahaanshiyaha waxa uu ku doodayo iyo waxa uu xaq u leeyahay siduu u heli lahaa iyadoo lagu dadaalayo. Haddii aan cadaaladu jirin, dowladna jiri mayso. Shaqada koowaad ee dowladda laga rabo waxa weeyaan inay cadaalad iyo qawaaniin cadaalad samayso. Shaqada labaad ee dowlad walba laga rabo waxa weeyaan inay ilaaliso amniga iyo xasiloonida iyo kala dambeynta bulshada ay dowladda u tahay. Waa inay siisaa amni gudaha ah iyo mid dibadda ah, oo qofka muwaadinka uusan cabsi ka qabin in amnigiisa wax la yeelo. Inuu qofka muwaadinka uusan u cabsanaynin naftiisa, maalkiisa iyo qoyskiisa midna in amni darro darteed wax loo yeelo. Oo qofku meeshuu doonan u shaqo tegi karaa ama uu ka shaqaysan karaa wax cabsiya asagoo aan ka qabin ammaankiisa in wax la yeelo ama qoyskiisa in wax la yeelo. Si ay taas u dhalatana, dowladda laga rabaa inay sharciyo u samayso, ciidamo u samayso, kuwa gudaha iyo kuwa dibadda ah. Sidoo kale waa inay dowladdu ka difaacdaa waddanka haddii bannaanka laga soo weeraro, ay u samaysaa hay'ado ilaaliya ammaanka gudaha iyo ammaanka dibadda labadaba. Waana sababta ay u jiraan ciidamada magacyada kala duwan leh ee ay dowladuhu leeyihiin. Shaqada saddexaad ee dowlad walba laga rabo waxa weeyaan inay ilaaliso xuquuqda muwaadinka. Xuquuqda muwaadinku maxay tahay? Xuquuqda muwaadinku waa in qofku uu codayn karo haddii uu bixiyo shuruudihii. Tusaale ahaan, haddii uu qaangaaray iyo haddii maankiisa ama maskaxdiisu ay fiyowdahay, waa inuu qofku xaq u leeyahay inuu codeeyo oo uu doorto qofka raba inuu matalo. Sidoo kale waa in qofku uu hadli karo oo free speech-ku uu xor yahay, oo aan la caburinin dadka. Dowlad wanaaguna halkaas ayuu ku jiraa. Waa in marka la ilaaliyaa xuquuqda muwaadinka. Sidoo kale muwaadinku waa inuu cabiri karaa dareenkiisa, uu ku cabiri karaa siyaabo sharcigu oggol yahay, banaanbaxyada iyo wixii la mid ah, ama hadalka uu la hadlayo warbaahinta ama uu ka soo hadlayo baraha bulshada. Waa inuu qofka muwaadinka taasna xor u yahay oo xuquuqdiisa la ilaaliyo. Shaqada afraad ee dowlad walba laga rabo waxa weeyaan inay kobciso oo tayeyso dhaqaalaha waddanka. Siyaabo badan ayay dowladda dhaqaalaha waddanka ku kobci kartaa ama ay ku tayeey kartaa. Laakiin haddii aan tilmaamo qodobo ka mid ah, waxaa ka mid ah in waddanka loo sameeyo lacag uu asagu leeyahay. Lacag uu waddanku leeyahay
in loo sameeyo waxay muhiim u tahay inay dowladdu kontaroosho hadduu inflation yimaado, in bangiga dhexe ee waddanku uu la macaamili karo wax kasta oo isbeddela oo ku yimaada dhaqaalaha waddanka. haddii ayna dowladdu ayada lacagta lahayn oo ay lacaga qalaad isticmaasho, dabcan ma kontarooli karto, bangiga dhexena ma kontarooli karo dhaqaalaha waddankaas inuusan inflation dhicinna kama hortegi karo, kamana daba tegi karo. waxaa kaloo ka mid ah siyaabaha ay ku kordhin karto dhaqaalaha waddanka inay kor u qaado ama ay tayayso wax soo saarka gudaha, inay dhiirigeliso beeraha oo ay facility badan ay u samayso, inay sidoo kale tayayso oo ay dhiirigeliso warshadaha iyo wax soo saarka gudaha waddanku siduu u xoogaysan lahaa, loona yarayn lahaa oo ilo dagaalami lahayd in wax waddanka gudihiisa laga heli karo ama lagu samayn karo in dibadda laga keeno. tayaynta wax soo saarka gudaha oo aad tayaysaa wuxuu kor u qaadayaa dhaqaalaha waddanka, wuxuuna u kaydinayaa oo u haynayaa lacag badan oo waddanka dibadda ka aadi lahayd, taas oo qayb ka ah siyaabaha ugu waaweyn ee loo tayeeyo ama kor loogu qaado dhaqaalaha waddanka. waxaa kaloo ka mid ah siyaabaha ay u tayeey karto inay kor u qaado businessyada yaryarka ee soo koraya, inay canshuur dhaaf u samaysa inta hore uu suuqa soo gelayo oo aan cadaadis lagu bilaabin, lagana ilaaliyo cadaadiska gudaha ah. markii uu soo kobco, iskuna filnaado, una awoodo inuu canshuur bixiyana ay dowladdu canshuur ka qaadato. siyaabaha kale ay dowladdu dhaqaalaha waddanka ku tayeey karto waxaa ka mid ah inay la dagaalanto oo ay dhinto musuqmaasuqa oo meesha laga saaro. musuqmaasuqu waa dilaaga horumarka iyo dhaqaalaha. mar kasta oo aad hoos u dhigtana waa mar kasta oo dhaqaalaha waddanku uu soo hagaagayo, bulshada dhexdeedana fasaadku uu ku yaraanayo. shaqada shanaad ee dowladdu laga rabo waxa weeyaan inay bixiso adeegyada aasaasiga ah. adeegyada aasaasiga waa badan yihiin, waxbarashadii ka mid ah, caafimaadkii ka mid ah, biyihii iyo korontadii iyo deegaankii ka mid ah. shaqooyinka ugu muhiimsan ee dowladda laga rabo ayay kow ka yihiin. waxaa laga rabaa dowladdu inay samayso manhaj waxbarasho oo tayo leh oo ka turjumaya dhaqanka, diinta iyo akhlaaqda iyo qiyamka ay aaminsan yihiin bulshadaas, sidoo kalena la jaan qaadaya waxbarashada iyo isbeddelka tiknoolajiyadda caalamiga ah ee socota. inay intaas inta midayso manhaj tayo leh ka soo saarta ayaa laga rabaa. sidoo kale waxaa laga rabaa ardayda inay u samayso public schools ay ardaydu wax ka baran karaan. ardaygii aan awoodin inuu iskuul bareefada lacag iskaga bixiyo waa inuu heli karaa iskuul waxbarashadiisuna tayo leedahay, macallimiintoodu ay tababaran yihiin, maamulkoodu ay u diyaarsan yihiin inay ardo tayo leh soo saaraan. sidoo kale waxaa laga rabaa inay isbitaallo babliga abuurto. isbitaallo babliga oo qofkii awoodi waayay inuu isbitaal bareefada aado uu aadi karo, uu ka heli karo adeegii uu ka heli lahaa isbitaalka gaarka loo leeyahay. tayadiisuna ay aad u sarreyso, qalabka yaalla ay aad u sarreeyaan, dhaqaatiirtooduna aad u sarreeyaan, aadna u tababaran yihiin. sidoo kale waxyaalaha laga rabo waxaa ka mid ah inay biyo iyo koronto firiya dadka ay siiso intii ay awoodo. waxaa jira dowlado bixiya adeeg koronto iyo biyo firi ah. qaarna waxay sameeyaan biyo iyo koronto jaban oo dowladdu leeyihiin oo lacag yar dadku iska bixiyaan inay siiyaan. shaqada lixaad ee dowlad walba laga rabo waxa weeyaan inay hagaajiso xiriirka caalamiga ah. xiriirka ay la leedahay dowladaha kale waa inay hagaajisaa. oo maxay ka faa'iidayaan muwaadiniinteedu? waxay ka faa'iidayaan inay ganacsi iyo aqoon isdhaafsi ay la yeeshaan bulshada caalamka iyo dowladaha kale. dowladdu markii ay xiriirka caalamiga ay wanaajiso, waxay fursad u siinaysaa muwaadiniinteeda inay ganacsi la samayn karaan oo ay badeeco u dhoofi karaan caalamka intiisa kale. badeecadii ay soo saareen ee waddanka ka soo hartay intii uu isticmaalamaan intii kale, waxay rabaan dadku meelay u dhoofiyaan. ganacsatadu waxay rabaan meelay u dhoofiyaan oo ay geeyaan oo ay u suuq geystaan. haddii xiriir fiican aad la leedahay dowladaha dhan, meel kasta ayaad u suuq gey kartaa oo laga faa'iidi karaa. sidoo kale waxay soo dhoofsan karaan badeecadaha aan laga helin waddankooda, ama badeecadaha qayrin ha noqdaan ama kuwa gudaha waddanka aan ku samaysmaynin siyaabo kala duwanba ha ahaatee, sababtu waxay doonta ha ahaatee, inay soo dhoofsan karaan. sidoo kale inay aqoon isweydaarsi ay la yeelan karaan bulshada caalamka ay fududaynaysaa. in ardayda halkan wax ku baratay ay goobo kale u shaqo tagaan, inay aqoon soo kordhsadaan oo waxyaalaha waddanka laga yaabo inuusan ku horumarsanayn ee laga yaabo in waddamo kale ku horumarsan yihiin inuu waxbarasho u doonan karo. xiriirka wanaagsan aana suuro gelinaya.
shaqada toddobaad ee dowladdu laga rabo waxa weeyaan sanadihii ugu dambeeyayna soo xogeysanaya. waxaa laga yaabaa 10 sano ka hor inuusan jirin qodobkan, laakiin sanadihii ugu dambeeyay aad iyo aad ayuu muhiim u noqday. sababtuna waxa weeyaan isbeddelka cimilada caalamiga ah oo sii kordhaysa oo mar walba saameyn ku yeelanaysa bulshada caafimaadkeeda iyo resourcega waddanka intaba saameyn ku yeelanaysa. marka waxaa laga rabaa dowladda inay hagaajiso oo ay la dhiilgarayso sidii ay u ilaalin lahayd caafimaadka deegaanka. haddii environmentiga uu wasaqaysan yahay, bulshadaas caafimaadkeedu khatar ayuu geli doonaa. sidoo kale resourcega waddankana waxaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeelato. sidiisa taas u dhicin, dowladda waxaa laga rabaa inay hagaajiso oo ay horumarin ka samayso oo ay cilmi baaris inta samayso si ay uga hortagto environmentiga isbedelaya ee soo badanayay sanadihii u dambeeyay. toddobadan shaqo ayaa laga rabaa dowlad walba inay qabato, mujtamaceedana ay ku celiso. haddii ay ku guulaysato, waxay noqon doontaa dowlad sumcad iyo karaamo ku dhex leh bulshada ay dowladda u tahay. haddii ay ku guuldareysatana, waxay noqon doontaa mid eedo iyo foolxumo kala kulanta bulshada ay dowladda u tahay. ururada iyo bulshooyinkii dowladaha ay jaalka la tahana kama heli doonto wax ixtiraama, madaxdeeduna waxay noqon doonaan kuwa aan wax ixtiraama loo haynin. muuqaalkeen intan ayuu ku egyahay. tan intaa muuqaalkan muuqaal lamid ah uga kulmi doono. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.